بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير كتمرت يبيها صاحبك حسن عبد النور، وزير دولها حفيزك، رئيس الوزراء، مدنا أشكر ميديها دمان شعبك الصومالي دوادي سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا الله سعطان شركي تدلواتك هشيسكي تدلواتك مي اللي وقفت مقالة مقدشو ay ku heshiiyeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa ku jira qodob dhigayay in liisaska xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedba ee cabashada laga qabo in loo soo gudbiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha muddo 3 cisho gudahood, ra'iisul wasaarahana uu muddo 2 cisho gudahooda uu u diro dadka ay ku soo baxda ama buuxin waaya shuruudaha ka mid noqoshada xubnaha guddiga doorashooyinka. waxaan ka cudur daaranaynaa in waqtigii loogu talagalay howshaas aysan ku dhammaan oo ay jiitantay sababo la xiriira ahamiyadda ay lahayd iyo baaritaan xoog leh oo la sameynaya dadka cabashada laga qabo si aanan loo dulmin qof muwaadin Soomaaliyeed. arrintaas ayaa aad dib u dhacaas keenay. waagi hore waxaan shaacinay 34 qof oo ka mid ahaa 67 qof oo laga soo cawday. maantana oo ay gabagaba tahay waxaa la bedelay 40 qof ayadoo dadka kalena markii dib loo baaray ama xubnihii ay soo qoreen maamul goboleedyada dib loogu noqday ay soo baxeen dad kale oo aan shuruudaha buuxinin. 40kaas qof ayaa la bedelay. guddiga intiisi kale waa diyaar. maanta ayuu ra'iisul wasaaraha saxiixay. annagana saacaddan aan taagannahay waxaan rabnaa inaan faafinno xubnaha guddiga ama ha ahaadaan heer federaal, kuwa khilaafaadka, kuwa maamul goboleedyada dhammaantood oo tiradoodu ay tahay 123 qof. waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed iyo murashaxiinta iyo dadka siyaasadda daneeya dhammaantood ay ku qanci doonaan guddigan cusub oo aan rajaynayno inuu noqon doono guddi dhexdhexaad ah oo soo xulista baarlamaanka aanan eex iyo nin jeclaysi ku shaqayn doonin. alkamaalu lilah, ilaahay baa dhammaystiran, nusqaan lama weynayo. oo annaga naftarkeena waxaan ka cudur daaranaynaa haddii ay jiraan dad naga qarsoomay ama dad si kale aan ula dhaqannay. arrintaas waa ka cudur daaranaynaa. laakiin nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam sadiduu waqaaribuu. qaaribkiyaan hadda aan ku jirnaa oo annaga wixii o dhan oo 100% ya waa suuragal inaysan dhammaystirnayn. waa soo dhoweynay. waxaan rajaynaynaa in lagu qanci doono in dhinacyada oo dhanna ay taageeri doonaan oo guddigaas uu noqon doono guddi dhexdhexaada. dhowaan baa sida wareegtada ku qoran waa loo wada yeeray. waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah ay magaalo muqdisho ku soo galaan si loo xareeyo, loo tababaro muddo kooban, kadibna loogu diro maamul goboleedyadii ay ka shaqaynayeen si doorashadu ay si dhaqso ah ugu bilaabato. maanta wixii ka dambeeya doorashaa loo dareeray. waxaan rajaynaynaa in ilaahay nabad uu noogu dhammeeyo. annagoo ciddii ilaahay u calfaana ayaa soo bixi doonta. dhammaantiin waa salaamantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.